السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودرسيني لبعض بارتو أن كجاه لين preferences كانوا هذا درسي ورئيس ممكن تميسي هالكن نوجودنا حتى هو صنعنا إيمي كتنو كلو حاجة ديجان تهاي automatically open drop down list when typing وحول بقط غور يصير مركا أدمياش جرين يصير وحقوقه صار يا ليستي كوف ضينا يا واحد غور يصير أدي ونصير قرننا كدورته bal aan isla eegno marka waxaan ka wada halkan oo kale imika hadaan ku dhufano halka hadad ku dhufatid imika midna ba account ba doonaysaa inaad meeshan gelisid account ka inaad magaciisa wala qortid ma doonaysid laakiin hoosta ku inuu isoo ku soo saaro ku fududeeyo doonaysaa ee qor midna ba ay marka qortid wuxuu ku soo saarayaa account-nada meesha kuugu jira kuwa eeda ka bilaamo horey buu kuugu soo saarayaa oo listigaas wuxuu ku fududeynaysaa inaad tartiibtaada uga dooratid marka khiyaarkaasi sidaa uu u shaqeeyaa way ka dhigan tahay haddii aan marka jeegtan ka qaado ka waran maxay isbedeli jeegta saaran haddaan ka qaado waxaa isbedeli iima soo saaraytii okay haddaad siisid imika eedi haddaad qortid waad dhamayn karaysaa isagoo yani listigii hoose uu drop down listigii uu halkan iskugu soo saarayay kuma soo saarayo halkaa inaad ilaa halkaa haddaad ku dhufatid uu soo saarayo bas halkaa haddaad ku dhufatid uu saarayo laakiin automatically kuma soo saarayo yani kan halkan automatic bay ahayd حق من ولي ما تقص صار كريس هذا أبوه دونيسيد مركا تانا ديسو ويدو لفتاد حقوق وعاون إيسا beep when recording a transaction مركا عن سمينا يو beep مركا عن دي سيف كريسيدو كله تاسي يعني وعطو سمينا يو برنامج أو دير يربو سمينا يا مركا واسك قادسة ديدا واسك قادسة ويعني وإزعاجه حقنا كله تنو كله إمك هداد أيتو وحكوا هاي automatically حسوسي أو حسوس account أما transaction كمعلومات كيسي مركا transaction قلنا يصير كوي هر معلومات كذا حسوسه مركا تنو كله هداد كل فتوى حق لقيتها automatically يقصو حسوس transaction كي قدام بيجي المجمع قليو مركا سيدا يسكت يسوع هل كان هو سعداد أيتو كله default time واحد اللي هذا default date كو استعماله يو وكسينا يو يلا بخيار بكليين ميد waxa weeyaan waa date ka maanta default iga dhig oo mar walba on wax gelinayo date ka maanta adigu automatic ku geli taa kale ee dambena waxa weeyaan waqtigii u dambeeyay ama date-kii u dambeeyay ee geliyay default iga dhig marka tan saad arkaysid yani mar walba waqtiga inaad bedeshid way kugu adkaanaysaa marmar waad iloobi karaysaa marka mar walba waxaad ku hubsataa inay ku tahay maanta iga dhig default okay markaasina taa weeyaan okay haddaan hoos u soo dhaadhacno halkan waxaynu arkaynaa yani mid walba ma wala eegayno sideen hore soo sheegnay marka halkan balaan eegno item and inventory waxa noogu jira halkan may preference waxa noogu jiraan iska soo dhaaf tab kale imo company and preferences imo company and preference halkan imika check to ma saaro laakiin inay check to ku saaraato mar walba waa muhiim waxay muhiim ku tahay imika yani inventory-gaagii ama makhsankaagii uu ka xiran yahay purchase order-na way ka xiran yihiin haddayna saarayn marka aad saartid labadiiba waa lagu furayaa okay balda si aynu isla fahanno waxay ka dhigan tahay wixii ka furan oo dhawaan ku wala xidhi wiili iska wala xidhe halkan home-keeni noogu soo laabo home-keeni imika inventory-geenu waa kan inventory-geenu yani wixii la shaqaynayay sida haddaynu طلب سمين كرنا أو كلا عجبنا الله كأنه أو كلا إن فيتريين كلنا نروح ونفرين إمك هدينو تيكا قانو محايز بديلي هدينو تيكا سو قانو إنه أوكي نرانو إسكا ولا حدة وحايز بديلي يا هل كان وحي أو دموي بحين أو برجر صور ما سمين كرنو عجب بخار كأنه لأنه كان ممكن كرنو وحي أو ما سمين كرنو marmar waxaa dhacda dadka accounting barto kale marka ay shirkadaha oo QuickBooks ku shaqeysta intii inventory-ga laga xiro sidan oo kale lagu leeyahay purchase order samee ama agaabta intrasif gale qofku marka mar walba waa inaad xasuusnaatid meesha uu inventory ka soo xiran yahay waa inaad halkii imatid tartiibtaada inventory-ga aad soo jeegreysatid marka sidaad u shaqeyn karaysid okay xagaas waa muhiim mar walba waa inaad la socotaa kale waxaan doonayna ku xasiyo waxay tahay halkan tigta waxa ka qaadi karaysa oo tig la'aan ka dhigi karaysa markii interview-gana laga soo mariyay baa la soo weydiiyay inventory hadda xasuusatiin waxaana la yiri inventory ma taraay garaysa ha hadaynu niri checkta markaaba na loo saaray hadaynu ma yan niri markii baana laga qaaday checkta
marka xaggaaba ka imatay intaan fahanto muhiim hoos u soo soco kuwii hore ku save gareeyaa ii save gare iska wala xid marka hoos u soo soco xaggan oo kale imika tan oo kale haddaan imanno paymentiska waxaa muhiima oo laga yani inaad ogaataa ay muhiim tahay halkan rejectaas kuu saaran waxay ka dhigan tahay mar walba ood lacag qaadid oo macmiil lacag aad ka qaadid lacagta haddaadan deposit garaynin oodan account gelinin wuxuu kuu sameynayaa QuickBooksku account la yidhaahdo undeposit funds oo kuu gelinayaa automatically lacagtaas waa lacagta aan weli la deposit garaynin in account la gelin markaa taabo by default kugu isticmaalayaa haddaad jeegta ka qaada laakiin marka waxaa lagaa dalbayaa lacagta inaad deposit garaysid oo account geysid marka inta noogu daa waxaynu leenahay lacagta ayna weli meel geynin halka noogu daa inta aanu halka ka qaadanayno oo soo soo reminders kan oo kale reminders waxay yihiin waxa meeshan kuwan ku saaran oo kale kuwan meesha imika kuugu qorani i xasuusi waxaa kamid ah hadday jiraan jeegag aan weli la print garaynin laakiin u baahan in la print gareeyo i xasuusi hadday jiraan sales orders aan weli la print garaynin oo u baahan in la print gareeyo sales receipt oo kale hadday jiraan bills to pay biilo loo baahan yahay in la bixiyo oo weli la bixinin i xasuusi marka saddex liin ba meesha yaala liinkan hore waa base summary waxa xasuusi oo waxa lagu leeyahay war saddex jeeg ama 6 jeeg ama 7 jeeg baa kuugu baahan inaad print garayso weli aadan jeeg garaynin baa lagu leeyahay sabab lagu xasuusinaya halkan listigan waxa ka dhigan tahay iyadoo yar tafsiilsan baa lagu sheegayaa waa lagu yar tafsiilinayaa tan saddexaadna waaba habe i xasuusin waxba hay xasuusin halkan nambaradan ay ku qoran yihiin waxa ka dhigan tahay imisa maalmood ka hor baan ku xasuusiyaa 5 maalmood ka hor xasuusi marka halka baad ka dooranaysaa iyo xasuusi baad leedahay inta maalmood ka hor xasuusi marka spelling oo kale haddaad doonayso in wixii aad qortay laga jeekaray programku wuxuu ku sameynayaa wixii Mrs spelling uu kaaga dhaco kale si khalad aad u qortid oo kale uu ka jeekareynaya waxan waa spellingkiisa khaladay marka iyadana kirigta waa iskaga deysanaysaa haddaad doonayso in laga jeekareeyo okay noode xagga waxaa noogu dhamaaday preferenceskeena sida aynu barnaamijkeena u bedilan lahayn wixii aynaga aynu jecel lahayn inuu ka bedelo sidii uu wala bedelan lahayn ba xagga noogu dhamaaday inaan wax badan markaa ka fahamnay baan rajeynayaa on preferenceskeena iyo barnaamijkeenu sida uu u egyahay iyo wax badan inaynu halkaas ka bedelay inta aanan markaa ka bixin baan waxaan doonayaa marka aynu soo marinay interviewgeena darsigii duruustii hore waxaan idin sheegay bay ahayd shirkadeena markaan informationkeena buuxinaynay meel kale oo aynu ka buuxin karaa jirta baynu ka idhaahdaa wax ka ilowday haddaad doonto inaad meeshay markii hore shirkadu deganayd bay ka guurtay adu wax lambarkii haddaad doonayso inaad ka bedisho emailkii inaad ku qortid wax walba haddaad doonayso inaad ka bedisho may company-dan baad ku dhufanaysaa may company markaad ku dhufato imika shirkadeena magaceedii addresskeedii meeshay joogto wixii oo dhan halkan bay kugu qoran yihiin halka yar ee qandaraaska oo markaad ku dhufato waxa lagu ogolaanayaa oo tagaysaa inaad shirkada wax walba macluumaadkeedii in addresskii meena soo qorin halkan haddaad phone number wixii meena soo buuxinin hadaba baanta inaad bixiso wadanka oo kale iska bedelaysaa adarkaad leedahay halkan baad sii soconaysaa legal information keeda haddaad u baahan tahay gebi physical yearkeeda waxaan ka dhiganay ahay January haddaad u baahan tahay inaad iska bedesho lafteeda tax yearka waad ku qoranaysaa halkii aynu foomamkii aynu ka soo bedelay aynu nid foomam cashuurta lagu bixiyo aan soo dooranay lafteeda xakamaad ka bedelan karaysaa halkan attachment ay ku qoran tahay hadday jiraan malafaad aad ku soo daraysid shirkadda macni video baad ku dari karaysaa qoraal baad ku dari karaysaa oo halkan baad ku soo dharaa garanaysaa oo kaga soo daraysaa macal video ku dari karaysaa meeshan dhan baad leedahay marka ku soo daraysto okay marka haddaad inagu imka xamad kama bedelino legal address kamadan soo update gareyn buu ku leeyahay ma waxaad doonaysaa inaad ku laabto soo update gareysatid noona waxba naga marka ma baahnin iska xir marka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.